السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan arday inaad fiicantiin baa rajeynaya dhamaantiin idinka iyo ehelkiinuba ilaahay afaadka iyo dhibaatooyinka jira ay naga wada nabadgeliyo. waxaan sii bilaabi doonaa insha Allah taala casharadii naga kala go'ay waqtiga naga kala jaray fundamental of nursing waxayna inoo mareysay baan filayaa maalinkii ugu dambeysay casharkeen isugu dhimaadno drug administration ama medication administration ayaynu soo wadnay sida awgeed si aynu usii wadno casharkeenii waxaan soo sharaxnay oo isugu keen dambeeyay wuxuu ahaa intramuscular injection ama dawooyinka laga qaato muruqleyda inagoo maantana sharaxi doona insha Allah taala oo sii bilaabi doona IV injectionska waxa la yiraahdo inagoo laba qayb doona IV injection oo mid yahay IV injection midna uu noqon doono intravenous therapy oo mid kasta mid kale wuxuu kaga duwan yahay waa tilmaami doona insha Allah. definition ahaan marka aynu qeexin ayaan tilmaano waxaan ku qeexaynaa aan leenahay is introduction of drug in solution from into vein waa dawo laga siiyo jirka inta badan ama ka gasho oo laga siiyo xididka isla markaana solution ama dareere ah often the amount is not more than 10 ml at a time. sidoo kale waxaan oranaynaa halkii marna kama badan karto amountiga ama xadiga laga siinayo qofkaasi xididka kama badan karo 10 ml ama 10 cc kama badan karo macnaheedu waxa weeyaan halkii xidid ee dawo laga siinayo ama markii maadaama waxa aan tilmaamayno IV injection kama badan karo oo lagama badin karo waxa la yiraahdo 10 ml ama 10 cc kama badan karo sidaa awgeed syringe laba ah oo ay ku qaadi kartaa oo 5 iyo 5 ah ama mid 10 baad ku qaadi kartaa halkii mar qofka aad ka siinayso. sidoo kale dawooyin kale aan dhaqaaninta badan antibiotics ka injection kaas sida ceftriaxone iyo hal maala waa 10 ml ka kooban yihiin sida caadiga marka la diyaariyo la qaso. purpose-ka hadaba ama ujeedada ka dambaysa in dawooyinka xididka laga qaato waxaan oranaynaa waxa weeyaan waa ama muhiimada inoo leeyihiin when the given drug irritating to the body tissue if a given through another route marka ay dawooyin noqoto ama drugskaas irritating ku keenayso jirka hadii laga siiyo other route ama meel kale laga siiyo ayay lagu bedelkeedu noqonaya in laga siiyo xididka. when quick action is decided sidoo kale marka la go'aansaday la rabo in ay dawadaasi noqoto mid si dhaqso u falgasha ama si degdeg ah oo loo arko reaction-keeda ayaa laga siiyo qofka xididka sababta waxa la xididku waa meesha ugu dhaqsaha badan ee dawo qof laga siiyo. when it's a particular desirable to eliminate the variability of absorption sidoo kale iyadana marka ay khaasatan ka hadlayno desirable to eliminate the variability of absorption marka absorption ka rabno tusaalahan ama nuugitaanka jirka uu qaadanayana waxay noqonaysaa markaas afraadna waxay noqonaysaa when blood drawing is needed examination markaan leenahay when a blood drawing is needed examination xilliga la rabo dawadaasi inay raacdo dhiiga iyadana waxay noqonaysaa purpose-keeda kale insha Allah sharaxada waan dejinaya maadaama uu video yahay idinku laga yaabo in internet isticmaalaysaan laakiin wixii su'aal insha Allah taala waan soo weydiin karnaa. equipment-ga aan u baahanaa ama agabka aan isticmaalno xilliga aan sameeyno drug medication especially IV injection equipment-ga waxa ugu horeeya in isticmaalo tarayga hore baan soo tilmaanay waxaan ku urursanayna alaabta ama agabka soo qaadanayno towel and rubber sheet waxaan u baahanay soo kale towelki iyo rubber sheet ama mushamac ayaan u baahanahay qaabkaan u isticmaalayno hore waan soo sharaxnay hadii imkaan ku celin tusaale ahaan towelka iyo rubber sheetka labadaba waxay noqonayaan in qaybta ama meesha qofka laga mudayo looga dhigo meel gogasho ku jiifo si aan ugu gudbin hadii uu jiro wax ka dhaco dareeraha marka waxaan hooseynaya rubber sheetka ama mushamaca soo kale waxa sareynaya towelka. sterile needle and syringe in sterile container waxaan u baahanahay irbad iyo sidoo kale syringe labadaba sterile ah isla markaana ku jira ah oo ku rideyno sterile container ama well container raahda sterile ah. sterile forceps baan u baahanahay sidoo kale iyana maqasyo ah sterile in sterile container isla markaana ku jira well sterile
alcohol swab baynu u baahannahay si aynu jeermis dil ahaan ugu isticmaalo, file ayaynu u baahannahay, medication baynu u baahannahay ama dawada lafteedii, tourniquet baynu u baahannahay ama xadhigii aan ku xidhi lahayn ama suunkii ama sidoo kale shayga aynu isticmaalayno ku xidhno xididkaasi marka aynu irbada gelinayno. receiver baynu u baahannahay laba xabadood ah si aynu ugu ridno wixii aan isticmaalay sida aynu isticmaalay oo kale alcohol swab oo kale ama syringe aan isticmaalay. receiver laba baynu u baahannahay. treatment chart baynu u baahannahay aynu wax ku qor lahayn dawadaanu bixinay ama qofkaan siinay. gloves ama faragashigii ayaynu iyagana u baahannahay si aynu isaga ilaalino inagu inay qofka wax naga soo gaadhaan isla markaana waxaynu ugu gudbino protective ahaan ayaynu isticmaalayna. procedure-kii haddaba qaabkaan u qabanayno drug administration-ka especially markaan ka hadlayno waxa la yidhahdo IV injection-ka. prepare your try, waa inaad traygii aan soo tilmaanay soo diyaarsato aan the medication. marka waa traygii iyo dawadii waa soo diyaarsanaysaa. explain procedure to patient, bukaanka ay u sharaxaysaa waxaad u qabanaysid ama tusaalahaan shaqadaad qabanaysa waxay tahay oo ah inaad irbad ku mudayso. position the patient properly, waa inaad positionka ku habboon qofka u dhigto. place rubber and towel under him, his arm, waa inaad qofka u dhigto rubber sheetkii iyo towelkii gacantiisa aad hoos dhigto to protect the belly, si aan sariirta inaan waxba u gudbin ay protective u noqoto. expose the arm, banee gacantii aan apply tourniquet, kadibna gacantii ku xidh tourniquetkii ama xadhigii aad u baahnayd ku xidho. ask the patient, sidoo kale waxaad ka codsataa bukaanka oo weydiisataa to open and close his fist, inuu furo oo xidho oo furo feer duubto, macnaha feer duubo oo sii daabaan leenahay si xididku inoogu soo baxo. balbed the vein, kadibna waxaad balbed garanaysaa veinkii ama xididkii and clean with the alcohol swab, kadibna waxaad ku nadiifinaysaa alcohol swabkii aan soo tilmaanay markii hore equipment-ka ka hadlaynay. the side of the injection, meesha qofka irbadaad kaga mudayso. which is what mainly the mid-cubial vein of the arm, inta badan wuxuu noqdaa midka maxay dhahday inuu noqdo laabatada gacanta ee cururka, way noqotaa qaybta sare ee gacanta ka sareysa ka bilaabanta jaraqlayda iyo wixii ka sareeya iyadana way noqonaysaa ama ka hooseeya. clean, kadibna waxaad nadiifinaysaa with the circulation motion baad u nadiifinaysaa qaab circle oo sidan oo kale baad u nadiifinaysaa. proceed from center side outward, adoo markaa ka bilaabaya bartanka isla markaana u durkaya sida xabada laxooxda loo dubo oo kale ama laxooxda loo dubo dhexda looga bilaabo haarahan loogu durkiyo si fiican ma taa u fahmayna filaya. hold the needle, irbada waxaad u qabataa about 45 degree, marka halkaas ibir maaha laakiin waa degree inaan saa kor saaro baa igu adkaatay sida awgeed. hold the needle at about 45 degree angle, 45 degree u qabo in line with the vein, kadibna adoo markaa ku toosinaya calashan oo ku toosinaya oo line ahaan ku toosinaya xididka ama veinkii isla marka hore aad u qabato 45 waxaad hoos ugu celinaysaa 15 degree irbadaad isticmaalayso. sidoo kale puncture the vein, waxaad daloolinaysaa ood ku mudaysaa irbada xididkii and draw back, kadibna dib u soo qabo syringe-ga to check whether you are in the vein, inaad xididkii joogto in kale or not ama inaanad joogin. xididkina siin kale ayaad irbada markaad ku muddo qofkii aad banjarayso ama aad dalooliso xididkii syringe-ga dib soo jiidaysaa. dhiig inaad soo qaaday in kale u baahan tahay, hadduu dhiig soo qaado xididkii baad joogtaa ama aad haysaa, hadduuna soo qaadin waxay ka dhigan tahay ma haysid. marka waa tan blood return should be seen, haddii markaa dhiig dib soo raaca aad aragto if you are in the vein, marka waxay u muuqataa inaad xididkii hayso. once you know that you are vein, markaad hubiso inaad xididkii hayso release the tourniquet, waxaad kasii daynaysaa tourniquetkii and gently lower the angle of the needle, kadibna waxaad hoos u dhigaysaa si maskaxaysan ama caqliyaysan aad hoos ugu dejinaysaa irbadii adoo markaa 45 ku bilowday 15 ka dhigay si xididkaad markaa u dhexgeliso. kadibna when is nearly parallel to the vein and instill medication, waxaan u baahanay markaa when it's what nearly parallel to the vein, markaad xididkii aad raacdo isla markaana aan instill the medication, kadibna waxaad u baahantay markaa dawadu weli laakiin ay kugu jirto syringe-gii give slowly, waxaad u baahantay markaa inaad hoos very slowly ayar inaad u siiso dawada unless there is an order to give it fast, haddii markaa aanu jirin amarku odhanaya waa inaad dejiso si ayar ama slowly baad u siinaysaa qofka
dawada. Normally marka sida caadiga waxa la yiraahdaa waa 40 to 60 drops inay noqoto markaan ka hadlayno xagga inta jeer ku dhici karta maadaama ay gacanta ka wadayno 40 ilaa iyo 6 dhibcood ay noqoto halkii minute ba inay noqoto halkii minute marka hal daqiiqo bay ka dhigan tahay 10 ml la ku siin karto qofka. Check the patient pulse waxaad qofka marka check garanaysaa pulse-giisa ama garaaca wadnihiisa in between and any complaint from the patient should not be ignored. waxaan ka u baahnaa maxay inaad qofka eegto pulse-giisa isla markaana haddii ay jiraan wax complaint ama cabashooyina oo qofka ka imanaya iyadana waa inaad ignore gareyn amaanad dafirin amaanad diidin amaanad maxay raday qofkii ka gudbinta cabashaysa waa inaad eegto iyaduna taas saas bay noqonaysaa taasina. Okay, apply the pressure over the site after removing the needle. kadibna maxaan u baahanahay xilliga irbadii qofka aad ka saartay ee dawada aad ku dhamayso waxaad ku sameynaysaa pressure over the site after removing the needle. meeshii aad irbada kaga mudday ayaad pressure ku sameynaysaa ama cadaadis to prevent the bleeding si aad uga hortagto ama uga ilaalino inuu meeshii ka soo baxo. Tell the patient to fix his elbow. marka qofka waxaan ku leenahay haddii ay meeshu ahayd laabatada gacanta ay ahayd inaad gacantiisa inuu isku laabto si aanu dhiig meesha uga soo bixin. Watch the patient for few minutes. qofkii waxaad eegaysaa markaa few minutes ama daqiiqado before leaving him inta aanad ka tegin. macnuhu waxa weeyaan wax reaction ama falcelin dawadii ay keentay baad eegaysaa inuu matago inuu wax dawaqaad iyo waxyaabo kale ama xaalad inuu ku sheegto qofku ayaad u baahan tahay inaad eegto. sidaa awgeed remove your equipment. kadibna waxaad qaadaysaa markaa wixii equipment aad haysatay baad guraysaa oo meesha ka qaadaysaa aad adeega ku bixisay. Put the patient in comfortable position. bukaankiina waxaad ku celinaysaa comfortable position ama positionka ugu habboon ee xilliga aad u dhigi karto waayo adaa ka bedeshay sidii marka hore u jiifay. ugu dambeyn wash sidoo kale sterilize and place equipment in order. alaabtii maydh sterile gare dhig oo gee markaa meeshii lagu amray ama meesha ku habboon ay leeyihiin alaabtaasi kadibna chart gareeyo qor the medication given amount time and reaction of patient. inta ma soo qoraysa markaa inaad chart garayso dawadii qofka aad siisay xaddigii waqtigii iyo sidoo oo kale the reactions of the patient iyo falcelintii ama reactionkii kaaga timi bukaanka inta ayaad sameynaysaa. Note, half a bowl of water to raise the needle is used immediately. marka inta badan taasi dawadii irbadii dawada isticmaashay inaad maydho waxa weyn ma tarayso laakiin wax maadaama kulliba ku tuurayso meeshii loogu talagalay qashin qubka ahayd macna badan uma sameynayso laakiin waa la sameeyaa in la maydho. Make yourself as well as the patient comfortable before giving injection. sidoo kale isdiyaari oo adigu macnaha sida bukaanka comfortable position uga dhigayso laftaadu markaa shaqadii qabanayso qofka inaad meel fog soo tiigsato qaab aanu kuugu habboonayn inaad u istaagto ama meel aad ka gaadhin inaad ka istaagto baa lagu diidaya. Number 3, it is a fastest way. sidoo kale waxaan la xasuusin inuu yahay fastest way of drug administration. waa xididka inuu yahay midka ugu fudud ayada ugu dhaqsaha badan ee dawo qof laga siiyo. Number 4, never recover a used needle. irbada isticmaashay iyadana dib ha u isticmaalin oo qof dambe ha wareegsanin. waxaan ku jirnay IV injection kan waa maxay waa qayb kamid ah un IV drugs ama IV route-ki ama xididkii qayb kamid ah waxa la intravenous therapy oo isagu wuxuu kaga duwan yahay oo waa therapy macnaheedu waxa weeyaan definition ahaan ama qeexitaankeedu wuxuu noqonayaa it is the administration of large amount of fluid. waxa odhanaya waa xaddi badan oo dawa ama fluid haydhaha dawa maaha kan waa fluid ama dareere into the system through the vein oo qofka laga siinayo system ahaan laga siinayo xididka. marka kan muxuu noqonayaa IV infusion ama baan karna ama intravenous therapy. waa xisaan qofka markaad ku xidhayso faleembo 500,000 iyo wixii hal maala ayay noqonaysaa markaa large amount gaas ama xaddiga badan ee fluidka uu noqonaya. ujeedadiisu waxa weeyaan laba arrimood oo inta badan soo qaadan tusaale ahaan way ka badan yihiin. in noqoto to maintain a fluid and electrolyte balance in qofka loo maintain gareeyo ama lagu caawiyo loo soo celiyo haddii uu jiro fluid ka baxay sidoo kale electrolyte balancegiisii sidoo kale to introduce a medication particularly antibiotics in dawooyinka qaar khaas ahaan waxa la yiraahdo antibioticska qofka loogu daro fluidka oo sidaas loo siiyo. equipment-ga waxay ka siman yihiin kii hore baa jira iyo waxay ku kala duwan yihiin labadaba laakiin waan dul cararaynaa insha Allah maadaama wuxuu video yahay oo aad ku ceshan kartaan intii idinku aad doontaan ba codka dib u dhageysan kartaan waan sharaxaad wada dejinayaa si aan ugu dheeraanin casharkan duubayna.
equipmentiga waa IV fluid asoo daribaad u baahan tahay fluidkii loo baahnaa ama qofka in lagu xidho lagu amray baan u baahanahay diyaarka ula ahayn aan ku xidhno ayaan soo qaadaynaa sterile syringe and needle baan u baahanahay marka irbad iyo syringe labadaba sterile yihiin rubber and towel baan u baahanahay receiverkii baan u baahanahay wax iskaga tuur lahayn alcohol swabkii sidii markii hore aynu tilmaanay baan u baahanahay iron board baan u baahanahay kan inta badan iron board kani waa flat devices buu noqon karaa ama loox yar oo fidsan oo kale si marka gacantii marka aynu qofka mis buu noqon karaa in qofka aynu gacanta kaga xidhayno ay figo kale in marka aynu caawisan u dul saarno sidoo kale waxaan u baahanahay bandage iyo scissors baynu u baahanahay bandage iyo maqas aan wax goyno tourniquet baynu u baahanahay IV ball baynu u baahanahay ama IV set buu ku habboon yahay naahno adhesive tape plaster baynu u baahanahay medication chart ayaynu isagana u baahanahay wax ku wadawad ku qor lahayn preparation of the patient qofka hadaba inaan diyaarno sensory infusion therapy takes several hours to complete the patient should first be made comfortable si maadaama uu qaadanayo infusionku waqti ama saacado kala duwan uu qaadan karo to complete inuu dhamaystirmo the patient should first ugu horreyn bukaanka waa inaad ka dhigto ama aad u samayso comfortable dee maadaama saacado badan qaadanayo positionka markaa ugu habboon bukaanka waa u dhigto haddii aad tirahdo tusaale qofkii isagoo adoo ku xidhaya IV infusion inuu istaaga ma noqonayso inuu fadhiina ma noqonayso midka ugu habboon markaa inuu qofkii jiifsado ay noqonayso isla markaana dhinaci markaa uu jiifsan karo dhabar uu jiifsado ama dhinacyada midka adigu aad u doortaba u jiifiyo inuu jiifsado noqonaysaa sidaa awgeed waa in qofka diyaarna marka hore procedure-kii hadaba markaynu sameynayno IV infusion therapy waxaan u baahanahay take equipment into the patient bedside wixii equipment ama agaba diyaarsan soo qaad bukaanka dhinaciisa ama sarinta ku jiifo explain to the chart u sharax markaa bukaanka waxaad qabanayso to be sure you have a right patient sidoo kalena hubi inaad bukaanka saxda la joogto remove airway from tube markaa tuumbada ka saar dareera hawada ka saar tuumbada qofka ku xidhaysay ee fluid soo raacayay place rubberkii iyo sidoo kale aan towel under the arm tuwaalkii iyo markaa shumacaasay labadaba gacanta u hoos dhig apply tourniquet about 3 cm above the intended site of entry kaga xidh markaa tourniquetkii qiyaastii 3 cm meel ka sareysa halka aad rabto ama intended site of entry meesha aad rabto inaad irbada ka geliso qofka observe and palpate the foreseeable vein observe gare oo isla markaa eeg oo taataabo foreseeable vein-ka ama xididka kugu habboon ee markaas qofka aad irbada ka gelin karto cleanse the skin with the alcohol swab kadibna ku nadiifi alcohol swab bahasha isticmaalaysay ama maxay goobtii aan idhaahdee cleanse the skinkii ku nadiifi with the alcohol swabkii aan soo tilmaanay equipment ugu jiray thoroughly and place the swab used thumb the what the tracked down the vein kadibna waxaan u baahnay markaa inaad suulkaagii u isticmaasho meeshii aad u baahnayd inaad irbada qofka ka geliso soo hoos aad weer cadaadiso aan soft tissue iyo sidoo kale soft tissue ama waxaan dhahday goos iyo wixii la halmaala sidoo kale 4 cm below intended site of injection markaad tourniquet ku xidho waxaan u baahanahay meeshii tusaale ahaan marka aad irbadii qofka geliso inaad suulka kaga cadaadiso maadaama aad u baahantahay inaad ka saarto irbadii ku dhex jirta kaanoolaha sidaa awgeed waa inaad cadaadis kaga samayso qiyaastii 4 cm meel u jirta halka aad irbada ka gelisay qofka hold the needle irbada waxaad u qabanaysaa markaa halka markii horena waan ka cudur daartay 45 degree weeyaan 450 ma aha hold the needle at the 45 degree angle line with the vein adoo ku dheeranaya ama ku toosinaya xididka sidoo kale press the skin and puncture the vein markaa dalooli oo meeshii xididka aad ka mudisay irbada qofka kaga mud check if you are in vein kadibna check gare inaad xididka hayso by throwing back adoo markaa dib soo jiidaya with the syringe adoo dib soo jiidaya blood return haddii markaa dhiigu soo raaco if you are a vein marka waa inuu dhiig soo raaca baan odhanayna haddii xididka aad hayso kadibna release the tourniquet gently kasii tourniquetka markaad ogaato inaad xididka hayso started the flow of a solution by opening the clamp bilow markaa inaad socodsiiso solutionkii adigoo ka bilaabaya ama kasii daynaya clampiga ama meesha yar ee loogu talagalay tuubada la socotay laga xidhiyo support needle with the sterile gauges irbada marka ku caawi oo ku taageer macnaha waxa u jeednaa waa maxay or sterile cotabolis markii meeshii irbada aad ka gelisay xilliga aad ka gelisay waa adiga nadiifiyay kadibna marka ka saaraysana waxaan u baahanahay inaad iyadana aad u isticmaasho sterile gauze ama cotton inaad u isticmaasho if necessary to keep it in proper position in the vein marka haddii laga maarmaanayo tahayna waa inaad ilaaliso markasta positionka veinka ee qofka irbada aad ka siinayso
ama xididka aad ka siisay fluidka. kadibna waxaan u baahanahay anchor the IV tubing with the adhesive tape. waa inaad ku xidho tuumbadii markaa ama biyuha soo qaadayeen fluidka soo qaadaysa adhesive tape plaster waa inaad ku xidho to prevent pull on the needle si markaa aan dib ugu soo bixin irbadu. waa in aad tuumbada si irbadu meesha ay kaga jirto qofka aan dib ugu soo bixin waa inaad ku caawiso oo aad u samayso inaad plaster ku xidho tuumbada iyo jirkaas isugu xidho ama tuumbada iyo sidoo oo kale gacanta qofka waa inaad isugu xidho. Place the arm board. marka waxaad hoos dhigtaa arm boardkii or splinter under the arm and bandage around. kadibna irbadii meeshii aad qofka kaga muday ama xididka aad ka gelisay waxaad u baahan tahay inaad hoos dhigto boardkii ama looxii yaraa si uu taageero isla markaana waa inaad bandage ugu xidho. adjust rate flow. kadibna adjust gare rate flowga ama xaddiga aad u baahan tahay qofka inuu ku dhacayo. rate flow is regulated by the flowing formula. kadibna waa inaad regulate garayso oo aad macnaha marka joogtayso marka hore waad bilowday in yar baad ku bilaabaysaa kadibna intaad u baahan tahay baad gaarsiinaysaa markaad ogaato inay si fiican ugu socoto qofka fluidka aad ku xidhay. haddaba halkan waxaa noogu yaala tusaale aan usoo qaadan doono inaynu xisaabino fluid calculation aan sameyno oo ah number. tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa fluid ka kooban tira ahaan ama maxay ml ahaan ka kooban 1000 ml isla markaana muddada qofka ku soconaya iyo inta halkii daqiiqo ku dhacaysa ama dhibcood baynu u baahan inaan xisaabino. sidaa awgeed haddii ilaahay ka dhigo waxaan halkan ku eegi doonaa in aad marka aynu sharaxaadna ka bixino kadib qof kastaaba inuu hadduu fahmayo haddii kaleba kulley waxaan idiin soo gelin doonaa insha allah casharku ku jira kala bixi doontaan ama qof kastaaba ka dholan goreysan ama uu ka daawan YouTube channelka aan ku leeyahay YouTube-ka. sidaa awgeed waxaan u baahanay qof kasta oo fahma isagu fahmay laakiin qof kasta oo fahmi waaya calculation-kan ama formulagan kuwa badan baan ka wada shaqeyn doonaa insha allah oo kale. sidaa awgeed qof kasta waxaan rajeynayaa in marka uu dhammaysto casharkan daawado qaybta commentiga YouTube-ka inuu soo dhigo inuu qofkii aan fahmin calashan su-aashiisa halkaas soo geliyo si anuguna markaas aan iskula shaqeyno qofkaas insha allah. waxaan isku dayayaa inaan qaab kan ka duwan aan idinku sharaxi doono insha allah. number of ml of solutions number of drop in ml. number of ml ka marka hore ee solution-ka uu ka kooban yahay baan eegi doonaa. sidoo kale number of drop in ml iyo sidoo kale inta dhibcood ay noqon doonto by ml ka noqon doono. number of hours baa loo markaa loo baahan yahay over which solution is to be administrated time is 60 minutes. tusaale ahaan number of hours-ka tirada saacadda ee loogu talagalay in solution qof ku socdo ayaa lagu dhufanayaa 60 minute oo ah saacad. sidaa awgeed waxaan leenahay 1 ml kii ama halkii ml ba marka uu 1000 ml tusaalan every 1 ml wuxuu la mid noqonayaa 15 drop. every 1 ml kiba wuxuu noqonayaa 15 drop ama wuxuu kan ka mid ah kan marka dhiganay wuxuu la mid noqonayaa 15 dhibcood buu la mid noqonayaa. tusaale ahaan waa tan su'aashii if 100 ml of 5% DW or dextrose in water is to turn for 24 hours. haddii 10 ml oo ah 5% DW ah is to turn oo qof ku soconayo for 24 hours 24 saacadood how many drops per minute should be itan. imisa dhibcood ayaa ku dhacaya halkii minute ba qofka. haddii 10 ml oo DW aan haysano isla markaana ay qof ku soconayaan 24 saacadood imisa dhibcood ayaa ku dhacaya halkii minute ba. waxaan oranaa markaa sida tan 10 ml oo lagu dhuftay 15 GTT waa drop per minute kii GTT per ml 15 dhibcood oo per ml ala halkii ml oo ah 15 dhibcood lagu dhufanaya waxaan loo qaybinayaa 24 lagu dhuftay 60 iyadana 24 saacadood oo saacadba 60 minute tahay oo lamida kunkii markaa wuxuu lamid yahay 15 lagu dhuftay 15 waxaan u jeedaa 1000 lagu dhuftay ayuu noqonayaa 15 1000 lagu dhuftay 15 macnaha waxaan jeednaa 15 dhibcood ayuu weeyaan 15 dhibcood ayaa lagu dhufanayaa kunkii inta badan wuxuu noqonayaa oo markaanu intaas ku dhufanay inoo soo baxaysa inay noqoto 15 bay noqonaysaa halkaas. marka maadaama aan waxaan isticmaalnaa yahay screen 15 lagu dhuftay 1000 waxa la mid noqonaysaa 1000 qaybiyay iyadana 24 oo lagu dhuftay 60
24 marka 6 lagu dhufto iyadana waxay noqonaysaa iyaduna sida tan oo ah tusaale ahaan inuu iyadana qaadano 1440 minute ay noqonaysaa 4 saacadood 1440 minute ay noqonayaan waxay la mid yihiin marka labada la isku qaybiyo intan ee intaas noqotay 15000 iyo intan noqotay 1440 minute ayaa waxay la mid tahay inay 10 GTT time per minute 10 drop per minute waxay noqonaysaa inay 10 dhibcood ku dhacaan halkii minute ba qofkaasi sida awgeed qof kasta waxa rajeynaya insha Allah inuu isku dayo inuu fahmo waliba muhiim buu inoo yahay qaybta practicalka insha Allah taala waad ku fahmi doontaan marka waxaan u baahanahay everyone view ama qof kasta oo casharkan markuu daawado soo gaaro maadaama uu muhiim inoo yahay qaybta commentiga insha Allah taala YouTube-ka ku reeb waan ka soo wada jawaabeynaa isagoo kan ka duwan iyo exercise kalena waa idin siinayna waxaanan rajeynaynaa qof kasta